haddii dunida ay ku faanaan shirkadaha qalabka isboortiga soo saara ee kala ah Adidas, Nike iyo Puma. tani waa shirkadda A2Z Sports House waxaana ay ku caanbaxeen soo saarista qalabka isboortiga qaybihiisa kala duwan. tan iyo magaalada Muqdisho markii ay bilaabeen inay ka howlgalaan shirkadda qalabka isboortiga A2Z Sports House waxaa markaa laga nastay dhibaatooyinkii loo qabay guud ahaan qalabka isboortiga qaybihiisa kala duwan. Ciise Ibrahim Xasan Ciise Deegaan kani waa gudoomiyaha shirkadda qalabka isboortiga A2Z Sports House waxaana uu ka warbixinayaa xilligii la aasaasay shirkadda iyo sidoo kale ujeedkii hadafkooda waxa uu ahaa xilligaasi. 2013 bisha 4 Abriil waxaa noo suura gashay aniga iyo tiim kale in fikirkan la curiyo oo la taxliiliyo oo la isku soo jiido oo la fadhiisiyo ilaa marka dambe la isla qaato kambaniga maanta muuqdo ee ujeedid A2Z Sports House oo asleeyahay hadduu ilaahay idmo aragtida iyo visionka nooga dhex jiray wax badan inay ka dhiman yihiin. ujeedka loo aasaasay wuxuu ahaa macnooyin kala duwan. waxaa ugu muhiimsanaa markii laga fiiriyo dhanka sportiska in sportiska wadanka iyo horumarkiisa iyo aragtida markaas noo muuqatay iyo waxa markaas naga dhex guuxayay oo ahayd in culays baahi qalab jiro wadanka oo ma aragtay haddii ay ahaan lahayd garoomankii, hadday ahaan lahayd footballkii, hadday ahaan lahayd dharkii la xiranayo oo fanaanadii, buumadii, sigsaantii, baasijeerigii, qalabkii trainingkii, whatsoever everything. taas waxay ahayd in ma aragtay filliga sportiska iyo baahida wadanka gaabka jiro in la kaafar gareeyo. caqabado badan ay soo martay, guulo badanna waa gaartay oo waxaa u suura gashay in dadka la baro sportiska, not only in fanaanada laga gado laakiin in dharka dhalinyarada meesha xaafadaha ay ku dheelaan loo tago, dharka la siiyo, loo qaybiyo, ku dheela la dhaho, shirkadii magaceeda loo sharxo, waxay hayso loo sharxo, naadiyada waaweyn in la engage gareeyo. isla 2014kii 15kii waxaa noo suura gashay inaan la fadhiisano naadiga facaweyn gaadiidka oo aan u sameynay dhar aad u qurux badan oo ilaa 19ka hadda ay ku dheelayeen oo qualitygiisana aad u sareeyay oo dad badan ay la yaabeen standardka aan ku sameynay iyo graffitiga iyo meesha aan wax ka soo bilownay. wixii ka dambeeyay sida og tahay life-ka up and down waaye guulo badanna waa taabanay. hadday ka mid ahaan lahayd maxaa la dhahay maamul goboleedyadii 2017 oo 5 maamul goboleed iyo gobolka Banaadir aan dharka siinay annagoo u mareynay xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed. waxaa kaloo jiray eventiga dhacayay oo hadday ahaan lahayd biladii, hadday ahaan lahayd koobabkii, hadday ahaan lahaayeen jaa-isooyinkii oo annaga aan taabagelineynay iyo biladihii kale oo markaas gudoomiyaha gobolka taabit oo la siiyey iyo kuwa wasiiradihii la siiyey iyo maamul goboleedkii guuleystay ma aragtay jaa-isooyinkiisa iyo wixii oo annaga aan free ku bixinaynay. waxaa kaloo ayadana in xuso mudan oo muhiim ah in ayadana degmooyinka sanadkii 2018kii inaan degmooyinka qaar sida Warta Nabadda iyo degmooyin kale aan ayagana taabagelinay. kii hadda ugu dambeeyay 19kii Xamarweyne iyo degmooyin kale ayagana taabagelinay in naadiyada waaweyn aan discount u sameyno sida hadda garoomada baa ka arki kartid naadiyada ugu waaweyn wadanka in dharka bilicdiisa shirkadda ay soo saarto, shirkadda A2Z Sports House dharka bilicdiisa iyo quality-ga iyo standardka annagoo kala jaan qaadayno iyo qiimaha oo aan aad ugu soo dhaweyno naadiyada waaweynka annagoo uga gol leh in moraal ay u noqdaan iyo role model dadyoga kale oo dhan. Muqdisho waxaan ku leenahay 5 xarun oo ku kala yaalo isgoyska Bakaaraha agagaarkiisa dhanka KBB iyo 2 xarun oo mid aan ku leenahay 2 xarun oo Xamarweyne ku leenahay. mid waxay ku taalaa wadada Via Roma, mid kale waxay ku taalaa masaajidka Marwaasi sukadiisa ajabka dhabarkiisa dambe. xarunta saddexaad waxaan ku leenahay, xarunta afraad waxaan ku leenahay Madiino Darkenley area Dabakay Madow masaajidka Macnuur. xarunta shanaad waxaan ku leenahay Suuq Bacad.
laakiin intaas keliya kuma eko waxaan xarun lixaad ku leenahay baydhabo garoonka doctor ayub kasoo horjeedkiisa oo ayadana baahideeda xagga ka imaatay. waxaan kaloo xarun aan ku leenahay Kismaayo oo laakiin xarun aan official ahayn ah, laakiin sanadkan aan rabnaa inaan official ka dhigno. waxaan kaloo ku leenahay dadyo ayagana noo qaabilsan laakiin xarun aan rabno inaan establish gareyno Boosaaso iyo Kaalkacyo iyo Garowe. waxaa kaloo ayadana muhiima oo sanadkan aan hadduu ilaahay idmo qorshaha qayb nooga ah strategic planka in aan xarun Hargeysa ka furno. haddii uu ilaahay idmo markii intaas ay noo suuro gasho waxaan ka jawaabi doonaa baahida hadda iyo dalabyada nooga imaanayo adduunka dacaladiisa sida wadamada oo aadka noogu dhow Ethiopia, Eritrea iyo Djibouti iyo Kenya oo ayaga laftooda gacanta noogala haatinayo oo qorshaheena dhow ay tahay sanadkii xiga hadduu ilaahay idmo ayaga laftooda aan maaragtay tagno oon aan ka shaqeyno insha Allah hadduu ilaahay idmo. cabdirasaaq roje waa gudoomiyaha kooxda kubadda cagta ee Elman. waxa uu markaasi uu shaaca ka qaaday inay ku nasteen shirkadda qalabka isboortiga ee Etosatt Sports House. waxaana uu sheegay markii hore inay jirto baahiyo gaar ah oo loo qabay qalabka isboortiga markaanay dhici jirtin dibadda markaasi loo dalbado, sidaa daraaddeedna uu sheegay in haatan ay ka baxeen baahidii loo qabay qalabka isboortiga qaybihiisii kala duwan. Etosatt kambaniga waa kambaniga ugu horeeyay oo wadanka imaaday oo sports qalab keenay Etosatt. marka wax badan ayaa laga faa'iideystay maadaama kooxahii wadanka dhisnaa iyo goboladii iyo degmooyinkii ay gaarsiiyeen qalab sports ah oo Etosatt kambaniga ugu horeeyay oo wadanka imaaday ahaa. marka anagana aad u noo anfacay. marka ugu horeysa aniga naadigayga qalabka marka hore waxaan u dirsan jirnay dibadda, Dubai ha noqoto, China ha noqoto, qoladii sponsorna siiso ayaa qalabka noo soo sameyn jiray. hadda laakiin wadanka Etosatt waxay kusoo kordhisay inay qalabkii dharkii ay ku tusayaan waxa aad markaas sponsorka ku siiyaan dharkiina aad ka helaysid ay ku dalbayaan ay ku keenayaan. faa'iidada waxaa ka mid ah dharkii kitkii dhan ay ku keenayaan, kabihii ay keenayaan, balooniyadii ay keenayaan, qalabkii sportska training kitkii aad ka helaysid wax maanta oo kooxdaad u baahan tahay ay ka caawinayaan. marka dibadda wax looga baahan yahay ma jirayso. runtii aniga waxaan qabaa academy oo goalkeeping college goalkeeping academy. marka waxay iga caawiyaan golofsyo aan gobolada aan geeyay, kitkii goalkeeperada iyo alaabtaas dhan ayaga aan ka qaatay. marka meel kale dibadda kama keenin. dadkii waxay u maleynayaan dibadda inaan ka keenin, laakiin waxaan ka iibsaday Etosatt ayaa balooni hadday noqoto gloves, alaabtii training kitkii wixii dhan waxay ay fuday Etosatt. marka waa u hambalyeynaya, waa horumar oo sportska Soomaaliya uu gaaray. marka mar labaad saddexaad waa u hambalyeynaya.